sida aad hore noogu barateen halkan waxaan kusoo gudbinaa mowduucyo idin xiise geliya marka ka dambeysa fadlan janalka subscribe saaro gambaleelka nufur si aad ula socoto barnaamijyadeena xiga muuqaalkan like saar si saaxiibtinimo inoo dhiirigelin bismillaah waxaan la yaabay qoladan oo maaragtay durable solution-ka isku magacaabay oo barnaamijka xalka waara ka shaqeyso yani waxay sameynayaan dad maaragtay baahan oo dhammaan dhalinyaro dhammaantooda shaqo la'aan ee meel inta isugu keenaan waxay leeyihiin waxaa laga shaqeynayaa durable solution qof saakay maaragtay gaar raaciisa uu hooyadiis ka soo qaatay leh maaragtay saaniyo noloshaada ku maareysaa haddii aad maanta oo dhan waqtiga ugu dhumiso durable solution ka shaqeynaynaa maaragtay voluntary qaab voluntary ahaan u shaqeynaynaa saas waaye waxaas haddaad ku mashquuliso anigu runtii waxaan isleeyahay barnaamijkaas isbedel maaragtay ma keenayso horta intaan durable solution laga shaqeynin dhalinyarada horta hala mashquuliyo dhalinyarada maaragtay shaqaha loo helo waxaan maaragtay boqolkiiba percentage dhalinyarada maaragtay percentage-ka shaqo la'aanta marka ay yaraato markaas waxaan isleeyahay durable solution horta maaragtay xalka waarana waa ka wada shaqeynaynaa horta xalka waarana waa ka wada shaqeynaynaayo maaragtay wax muhiim ah waaye laakiin horta shaqo la'aanta waartay horta yani dhalinyarada maaragtay sida loogu bixin lahaa barnaamijkaas laga wada hadlo ma ahane bal hay-adaha maaragtay barnaamijkaas waqtiga ku dhuminayo maaragtay waqtiga dadka barnaamijka dadka xal waara keeni karo maaragtay dhalinyarada waaye dhalinyaradan waxay xal waara ku keeni karaan in maaragtay shaqo ay helaan maaragtay shaqeystaan qof kasta marka uu gurigiisa iyo maaragtay nafsadiisa uu ka adkaado wax u helo markaa kadib maaragtay waa laga nabadgalaa laakiin yani qofka xal waara keen adhoos markuu gurigiisa kusoo laabto maskaxdiisa way shaqeynayaan maanta oo dhan fursadda si kale ugu faa'iideysanaa yani marka kale waxaa maaragtay dhawaanayso inuu si qaldan u adeegsado fursadiisa marka waxaa waaye walaalayaal barnaamijkaas naga